aad iyo aad ba u mahadsantihiin waa run sida xusteen ba waxa jira in ay Soomaaliya ama Puntland ha noqoto ama dawladaha kale xubnaha ka dawladda federaalka ha noqoto ama dawladda federaalka laftigeedaba ha noqoto la sameeyo dadaalo badan oo looga hortagayo ama lala tacaalayo meelaha hadda ay kaysasku ka dilaaceen xanuunkan coronavirus ama COVID-19 ka arintaas oo xilliga uu ku soo aadana ay dad badan dareemayaan inay tahay xilli xasaasi ah laakiin waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso in aragtida Puntland ay ku wajahan doorashooyinka 2020 inay tahay arin dastuuriya inay tahay in dadka reer Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka waajibaadku ay ka saaran yahay dawladda dhexe ee federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah inay u diyaar garoobaan isagana yimaadaan sidii ay ku dhici lahayd doorashadaas dalka uga dhici lahayd sababtoo doorashadaas oo si laga fursan karo dib ugu dhacda ama marmarsiyo laga dhigto xaalado laga maarmi karo waxay keeni karaa khilaaf fogaada oo dalka kala dhex gala waxa loo baahan yahay marka madaxda dalku inay ayadoo aynu gelinayno juhdiga ama ha noqoto dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ama ha noqoto dawladda dhexe ayadoo xanuunkan iyo xaaladiisa ka hortagiisa lala tacaalayo ayadoo waajibiyadii kale ina saaraa ay ka mid tahay in la sugo amniga dalka la qabanayo ayadoo ay tahay waxa la wixii kala hawl dalka ka yaala in la fulinayo haddana in loo diyaar garoobo dalka inay ka dhacdo doorasho xilligeedii si looga hortago inuu dalku galo xaalad constitutional crisis ama maxaa la yiraahdaa xasilooni darro ka timaada iyo isqabsi siyaasadeed oo ka yimaada in si aan loo dhamayn looga faa'iideysto xaaladaha dalka ku soo siyaaday arinta doorashada ay tahay dalka inay ka qabsoonto 2020 ilaahay baan ka baryaynaa in xanuunkaas uusan hadda cases baa jira xamar oo kale iyo Somaliland laga xusay ama laga sheegay laakiin ilaahay baan waxaan ka baryaynaa inuu intaasina kaga koobo waxaanan ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ahba ku boorinaynaa in dadaalada socda oo hadda Puntland lagu amaanay hay'adda caafimaadka adduunka ku amaantay dadaalada ay wado in meel walba dadaaladaas kale laga sameeyo si looga hortago in xanuunkaas uu ku baaho dalka Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay in ayadoo dadaalkaas la wado dhinaca kalena laga shaqeeyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho haddii ay timaado ilaahay naguma keeno xaalad faraha ay ka baxdo xaaladda dalku wixii imaanaya ee go'aanaa waa inay noqdaan wax loo dhan yahay oo Soomaaliya oo dhan si isla ogola ay u qaadato laakiin hadday timaado xaalado ay isku dayaan madaxda dawladda federaalka ah in ayagu ka faa'iideystaan duruufaha dalka ka soo siyaadaya ama ku soo baxaya waliba xanuunkani uu ka mid yahay ama ha noqoto xaaladda amniga ee ka jira gobolada Soomaaliya qaarkood arintaasi waxaan ka digaynaa inay sidaas u dhacdo waxayna keeni kartaa sidaan marka horeba sheegayba kala fogaansho hor leh ee siyaasi